maantuna waxayna bilaabi doonaa fasalka saddexaad oo ka tirsan groupkani antibiotic kaasoo magaciisu noqoni doono cephalosporin class. run ahaantii hadda waxaynu soo baranay laba fasal. fasalka koowaad aan soo baranay waxa weeyaan penicillin class, fasalka labaadna waxa weeyaan tetracycline class. fasalka saddexaad aynu maanta barani doono waxa weeyaan asigana cephalosporin class. marka isku day fadlan inaad fahmi karto habka aan fasaladan u soo sharxaadayo si markaad u fiiriso. run ahaantii channel YouTube-keegu qaab u soo dhigayo idil kala soco saad hadhowdi u noqon doonto qof adiga fahmi karayo habka pharmacology-gu oo u kala baxo. cephalosporin class waa fasal ka tirsan groupkani antibiotic. cephalosporin ereygan cephalosporinka waxa weeyaan a subclass of antibiotics, يعني fasal ka tirsan groupkan antibiotic. colon waxa loo yaqaan cephalosporinkaas beta-lactam antibiotics. antibiotics groupkan loo yaqaano antibiotic waliba soo hoosgali doona 10 fasalo kala duwan that have fasalada soo dhowi lahaani doonaan a chemical structure qaab ahaan isku chemical called waxa loo yaqaanaa a beta-lactam ring. يعني haddaad aragto 3 fasal oo ka wada siman yihiin hal chemical waxa loo yaqaanaa beta-lactam ring. marka waxaad isku daydaa in aad fahmi karto labadan eray sida beta-lactam antibiotics iyo beta-lactam ring. marka maxay ku kala duwan yihiin beta-lactam antibiotics iyo beta-lactam ring? beta-lactam horta eraygaas markaad si u fiiriso waxaa lagu magacaabi karaa fasal kasto sida tusaale ahaan penicillin, cephalosporin, carbapenems iyo monobactams. beta-lactam ring dad maqashana isla afartan oo fasalo hadda magacyadooda ku soo sheegay ayaa guud loo yaqaanaa beta-lactam ring. يعني fasalada haddii adiga ay ka wada siman yihiin ama ay ka soo qayb qaadan karaan marka si loo fiiriyo habka shaqo ahaan waxaad ogaataa in fasaladaas lagu magacaabi karayo beta-lactam ring.